بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome back to Aisha Beauty. أصحابتي قالي waxaa idin rajaynaa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo meel kasta ay joogtaan. kusoo dhawaada videoga cusub ee maanta idin wado. Videogeena maanta wuxuu kuseeyaa 3 shay gabdhaha ayaa loogu talagalay aad ugu fiican yahay. 3 shay oo kala ah habka xukumanka xoog loogu yeeli lahaay, sidii hormoonka estrogenka kor loogu soo qaadi lahaay iyo sidii ugu fudud insha Allah oo uur ah ku qaadi lahayd. 3 shay oo kuseeyaa marka insha Allah hadan waxa u jeedin horteeda yaalo waxa u baahanahay 2 shay bis wax badan ma ahan. labadaas shay oo kala ah xulbo iyo falnasiid waa idin tusinaa. waatana meeshan waxa ay taal xulbo bahalkan waxa la dhahaa falnasiid mise shamar afka ingiriiska waxa lagu dhahaa falnasiid, afka carabiga waxa lagu dhahaa shamar. sidaan ayuu egyahay waa kaasa. marka had intaan isku darin waxa idin sheegay sidii loo isticmaali lahaay. labadooda waxa ka qaadanay hal qaado xulbo, hal qaado oo shamar ah mise falnasiidka ah. bakeeriya ku shubay, waxa ku shubanay biyo karkaraay aad u kulul, kadib waa daboole. waxa sugay muddo ilaa 10 daqiiqo adi 8 daqiiqo ilaa xoogaa qandac oo ka noqdo inuu qaboowano ma la rabo. qabow u baahan waxa wax qandac oo adi cabi kartid wax lagu gubanaayna ma la rabo. waxaana cabitaankiisa bilaabaysaa maalintii dhiiga caadada oo kugu dhacdo mise dhiiga xaydka qof kasta uu yaqaano ilaa ay waxa cabaysaa muddo 13 bari ah. 13 bari kadib waa joojinaa. haddana bishii kale sidaas oo kale maalintii caadada kugu dhacdo ilaa 13 bari ah cabaysaa, haddana waa joojinaa. saas ayaa ku soconay ilaa insha Allah ilaahay waxa aad jecesha oo kaaga sahlaayo. waxaana cabay maalintii 2 mar, hal mar subaxii adoo afkaada qabtid iyo hal mar habeenkii markaa seexanaysid. labadaas mar aa kala cabaysaa insha Allah. wax sokor ah ma lagu daraayo, asoo sidiis ah la cabaa. hadaa rabtid waxa ku darsan kartaa malab bes, laakiin sokor ha u soo dhaweynin. haddii oo aad tahay dadka caadada ay kasoo daahday mise caado wareer ay hayso, dadkaas waxay sameynayaan waxay cabayaan 20 maalmood maalin kasto 2 mar, hal bakeeri subaxi ah iyo hal bakeeri oo habeenkii ah. 20 beri aa cabay. 20 beri kadib waa joojinaya. waxaa cabay haddana wixii videogii hore aan soo dhigay sida habka dhiiga caadada loo soo celiyo waxyaabaha cabay sida sactarka iyo sanjabiilka. videogaas ku noqo haddii aad fiirsanin. awal shay kana cabay kadibna videogaas fiirsan waxyaabaha lagaaga baahan yahay meesha ayaa ka arkay. haddana waxaa sameynayna soo isku dar lahaa waa idin tusinaa. waxaan rajeynayaa insha Allah inuu video idin cajiba. asxaabta hanaga baqeelina subscribe, like iyo share insha Allah. haddana waa kaas biyo saas u karkaraya rabnaa. waxaa qaadanaa hal qaado oo shamar ah iyo hal qaado xulbo ah bes. qaadada shaaha wax badan ma la rabo. waa sugaynaa ilaa muddo 10 daqiiqo 8 daqiiqo saa u jeediin. saasa isku qasaa. wax la karinaayo ma ahan, dab la saaraysid. haddaa dab saartid faa'iidada dhan dabkii raaca waba ka tagaa ma loo baahna. saasa u dhaafa muddo 10 daqiiqo 8 daqiiqo intay noqoto. markuu qandac noqdo waa cabaa. saa hore idinku sheegay subaxii hal bakeeri ah iyo habeenkii oo hal bakeeri ah 13 maalmood markoo dhiiga caadada kugu dhacdo. haddii caadi ay kugu dhicin 20 beri ee cabay kan kadibna waxaa cabay videogii hore aan sameeyay habka dhiiga caadada loo soo celiyo kaas fiirso insha Allah. waxaan rajeynayaa inuu video idin cajibo. subscribe iyo share iyo like hal isaar asxaabteeda qaaliga ah. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.